iyadoo ay maalintii shalay isku hor imaad u dhex maray ciidamada biliiska Somaliland ee ku sugan magaalada Lawyacado iyo darawalada gaadiidka xamuulka qaada ee lagu magacaabo Tawakal oo ay ku midoobeen gawaarida xamuulka qaata gobolada Awdal Maroodijeex iyo sidoo kale Togdheer oo isku hor imaad ku dhex maray magaalada Lawyacado hadaba Masuliyiinta iskashatada Tawakal ee gaadiidka xamuulka qaada ee u kala goosha Somaliland iyo Djibouti arintan ayaa waxa dhalisay kadib gaadiidan ka diiwaan gashanay iskashatadaasi Tawakal markii ay ka shaqo bilaabeen magaalooyinka Lawyacado iyo sidoo kale Sayla taasi oo ay sheegeen Masuliyiinta iskashatada Tawakal inay dabada ka riixayeen barasaabka gobolka Salal iyo sidoo kale maamulaha kastamka magaaladaasi Sayla waxaana Masuliyiinta iskashatada ee Tawakal maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ay cabasho ka muujiyeen barasaabka gobolka Salal iyo sidoo kale maamulaha kastamka magaaladaasi Sayla waxaana ay sidoo kale baaqiyo kala duwan u direen xukuumadda Somaliland haddaanu nahay gaadiidleyda gobolka Awdal iyo Salal iyo Hargeysa iyo Burco iyo Togwaja waxaan helay dad ururkiyeed isku tuubnaanta nacaya oo kastamka Sayla loo soo bedelay nimanka madaxda Sayla ka iyo barasaabka iyo dhamaantood maamulka Sayla baa ka laga cabanaya gaadiidleyda ka cabanayaan oo 300 oo baabuur waxa maanta Boorama ku xanibanay jooga Boorama dhexdeeda maanta ee cabashada muujinaya waxa weeyaan baabuuradani waxa ka soo abaarti daba dheer bay ka soo qayb galeen duufaankii iyo sulaamidii dhacday ka soo qayb galeen baabuuradani maanta ma geeyaan in kolba askari yar iyo in yaroo shalay shaqada la qoray Johnny oo yaroo sanadkii qaranka ku jira inuu ku barbarto xukunka baabuuradani kama geeyaan Soomaaliya kama geeyaan wadadka xidhanna loo soo celiyo xorriyadooda baan doonaynaa baabuurku ninka hadduu doonayo inuu biiro baabuur noocayaagaas inuu soo iibsado oo uu iskaashtadana wadadeedii soo maro unagu soo biiro weeyaan baabuur number lahayn oo Djibouti ka cashuureen oo iskaashtadeedii aan wadadeedii soo marin oo aan nala mid ahayn iskaashtadeedii ku jirin ayaa la doonayaa maamulka Sayla inay qasab ay ku soo raraan oo iskaashtadeedii lagu baabiyo baabuurteedii baba gali kartaan baa leeyahay iyagana 12 habeenimo loo sii daayay xadka Djibouti oo gal leeyahay iskaashtadeedina saasa lagu baabiyay gudoomiyaha iyagii iyo ku xigeenadii intaba iyagoo halkan ka tagay cad joogana Lawyacado barba ku xidhan Sayla barba ku xidhan gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisina asacad ku xidhayn waxa ka tago arinta darteedu tagay marka halkan waxaan aan codsanaynaa dawladda iyo madaxweynaha in ay arinta wax ka qabtaan oo dib ay noo eegaan ana la dul keenay gaadiid aan iskaashatada ka tirsanayn oo lagu qasbay taasi oo lagu xirxiray Masuliyiintii iskaashatada Tawakal qaar Lawyacado loo joogso qaar ashacada loo joogso lagu xiray qaar Lawyacado inta laga ururiyay saldhigga booliska Sayla Geys taasi oo la rasaaseeyay saayim garanaysa cadow yihiin waxaan aad uga xunnahay dhacdada magaranaysa lagu xirxiray madaxda iskaashatada Tawakal barasaabka gobolka Salal iyo taliyaha kastamku waxa ay wadaan gobolka ka wadaan rifta ka wadaan hadaan laga soo gaarin xukuumadda ka soo gaarin wax gacmaha la isku tagi wax kale oo magaranaysa awood sheegasho ayuu kula kacay awood sheegashada ay ragaas ku xireen iskaashatada Tawakal Masuliyiintaas ku xireen aad baan uga xunnahay mana yeelayno marnaba in magaranaysa gaadiid kale oo iskaashada ku jirin halka inta yimaadaan qalbo waraaq inta loo soo qoro wax ka qaadan barasaabka waan ka cabanaynaa ninka la yiraahdo maamulaha kastamka ay ragga ujeedada lana dawladdu inay naga qabato baabuurtaasana ay Djibouti ka xidhantay ee hantidu ka gashay Djibouti ee halka yar joogta dibadda ka soo daabulata marka waxa weey gaariga cashuuran diidiba mayno inuu nala qaadade laakiin gaari aan cashuurnayni nala qaadi maayo taasa ka cabanayna Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buuri telefishinka caalamiga Eryal TV magaalada Boorame